بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا وناكسن صاحب يلا هالكن وحولك وررك كسر دوادا ورك حولك وررك قضى بدا داون دونتان وحكمدا weerar ismiidaamin ah oo dad badan ku laadeen oo ka dhacay Muqdisho shaqaale ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha oo geeriyooday hooyo iyo caruur ay dhashay oo laaday gabdho jaamacad u socday oo baaba'ay guudaan xogta ku gadaaman qaraxaasi dacwad ka dhana farmaajo iyo rooble oo loo gudbiyay maxkamad caalami ah iyo halis soo wajahday madaxda isku haysata siyaasadda Soomaaliya ayaan warbixinada kaga haynaa maxaa ka jira in qaraxi maanta ka dhacay Muqdisho uu qayb ku lahaa ishaysadka siyaasadeed ee dalka ka jira iyo cadeymo arrintaas la xiriirta oo la helay dawladda Soomaaliya waxay ciidamadii ugu faraha badnaa u daabushay deegaano hoostaga Galmudug xiisad culus oo halkaasi ka taagan iyo xogta ku gadaamanayaan idin soo gudbin doona dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada Galmudug iyo kuwa Ahlusunna wal Jamaaca oo ka qarxay deegaano hoostaga gobolka Galgaduud iyo madaxweyne ku xigeenka maamulka Galmudug oo ka baxsaday caasimada Dhuusamareeb ayaa daawan doontaan iyo weerar ay ku dhinteen dad badan oo ka dhacay dalka Afghanistan kadib la wareegista ururka Taliban markale saaraga boon saaxib yaal halkan waa xulka wararka fadlan hadii aad nagu cusubtaan nagu soo biiro subscribe saar like da share la wadaag saaxiibada aragtaadana waa inoo muhiim commentiga nagu reeb waxa naga xasuusina hadii aad joogto waqtiga salaada inaad soo gudato waajibka rabbi kadibna dib ugu soo laabato daawashada muuqaalkan qodobadii aad daawateen oo dhameystiran u diyaar garooba saaxiibayaal aynu ku bilowno weerar ismiidaamin oo dad badan ay ku laadeen ayaa maanta ka dhacay magaalada caasimadda ay Muqdisho iyadoo xogo dheeraad ah ay ka soo baxayaan weerarkaasi weerar loo adeegsado gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ayaa barqanimadii hore ee maanta lagu weeraray aafaafka hore ee madaxtooyada Soomaaliya qaraxan waxa uu si gaar ah kaga dhacay meel dhowr tilaabo u jirta kontaroolka laga galo xarunta madaxtooyada Soomaaliya oo ka agdhow isgoyska Eelgaabta degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir gaarigan laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ayaa beegsada goobtan xilli uu mashquulkeedu aad u sareeyay isla maraantana howlgalla iyo baaritaano lagu waday gaadiidka noocyadooda kala duwan gaar ahaan kuwa galaya xarunta madaxtooyada iyo hoteelada ka agdhow ee ku gadaaman goobtaasi jugta qaraxan waxa laga maqlay inta badan degmooyinka ku yaala gobolka Banaadir iyada oo ila ka agdhow goobtan ay soo qaadeen sawirro iyo muuqaallo muujinaya burbur lixaad oo gaaray goobta uu qaraxu ka dhacay intaas kadib afayeenka ciidamada booliiska Soomaaliyeed oo warbaahinta kula hadlay goobta uu qaraxu ka dhacay waxa uu sheegay in qaraxan uu ahaa mid xooggan isla maraantana qasaare lixaad leh oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu gaarsiiyay dadkii rayidka ah ee ka agdhow goobta inta afayeenka booliisku uu xaqiijiyay 8 qof ayaa geeriyootay iyadoo 9 kalena ay ku dhaawacmeen weerarkii ismiidaaminta ah ee barqanimadii maanta ka dhacay aafaafka hore ee xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya qaraxan dadkii ku geeriyooday waxa qayb ka ah hooyo iyo 2 caruur oo dhashay oo mooto bajaaj ay saarnaayeen uu ku go'go'ay jirkooda isla maraantana la waayay sidoo kale gabdho dhalinyaro ah oo u socday mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala Muqdisho ayaa weerarkan u haleelay waxaana halkaas ku geeriyooday inta ugu badan gabdhahaasi iyadoo kuwa kalena dhaawacyo kala duwan la ka soo gaaray weynay ka shaqeynaysay xafiiska ra'iisul wasaaraha oo Hibaaq Nuur lagu sheegay magaceeda ayaa qayb ka noqotay dadka ku geeriyooday weerarka ismiidaaminta ah ee maanta ka dhacay afaafka hore xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo duqa caasimada Umar Firish iyo mas'uuliyiin sare oo ka tirsan dawladda ayaa ka hadlay weerarkan waxaana ay ku tilmaameen mid bahalnimo ah iyaga oo sheegay in loo baahan yahay shacabka Soomaaliyeed ay meel qura kaga soo wada jeestaan kuwa caadeystay daadinta dhiigooda waa sida lagu yiri warbixinada ay soo saareen al-shabaab dhankooda qoraal ay soo dhigeen baraha u faafiya wararka waxay ku sheegeen in weerarkan ismiidaaminta ay la beegsadeen afaafka hore ee xarunta madaxtooyada isla maraantana ay weerarka ku dileen saraakiil sare oo ka tirsan dawladda iyo mas'uuliyiin sare oo ka kala tirsan xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha si kastaba haatee weerarka ismiidaaminta ayaa ku soo aaday iyadoo magaalada caasimadda ay Muqdisho ay la ciirciirayso xaaladda siyaasadeed ee waqtigan ka taagan sidoo kale waxyaabaha xusida mudan waxa qayb ka ah in magaalada Muqdisho ay maalmihii la soo dhaafay ku sii kordhiyeen weerarada ismiidaaminta ah ee ka dhacaya dhinaca kale isla weerarkan inagoo ka bixino xog cusub oo la helay ayaa muujinaysa in weeraradan ay ku lahaan karaan ishaysadka siyaasadeed ee waqti xaadirkan ka jira Muqdisho durba markii uu dhacay qaraxa ismiidaaminta ah ee ka dhacay afaafka hore ee xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya waxa la isla hadal qaaday wararka la xiriira in ishaysadka siyaasadeed ee dalka ka jira uu ku lug lahaan karo weerarkan ismiidaaminta ah waxaana arrintan biyo kulul ku sii shubay ka gadaal markii gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Cali Yara Cali qoraal uu soo saaray uu ku sheegay in muddo 3 sano ah kadib ay tahay markii ugu horeysay oo 3 maalin oo xiriir uu qarax ismiidaamin ka dhacay Muqdisho waxaana uu sheegay in taasi ay muujinayso arrinta la xiriirta in wasiirka amniga uu yahay mid aan lagu wada qanacsanayn
dadka siyaasadda gorfeeya ayaa durba isweydiiyay su'aasha la xiriirta in gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda isaga oo ka duulaya in aan la ansixin wasiirka amniga ee haatan uu magacaabay ra'iisul wasaare Rooble ee Cabdullaahi Maxamed Nuur uu ku lug lahaan karo weerarka ismidaaminta ah ee ka dhacay maanta magaalada Muqdisho waxaana saacadii ugu dambeeyay baraha bulshada aad loogu hadlayo wararka la xiriirta in qaraxaasi ismidaaminta ah ay ku lug lahaan karaan siyaasadka siyaasadeed ee waqtigan la jooga ka jira guud ahaan dalka gaar ahaan u dhaxaya madaxda sare ee dalka siyaasadka siyaasadeed ee karkiis uu sii sara marayana waxa ay keentay in maamulka Galmudug oo qayb lixaad ka qaadanayay isku soo dhaweynta madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay sheegeen in ay hakiyeen guud ahaan qayb inay ka noqdaan heshiisiinta madaxda sare ee dalka isku haya siyaasadda dalka waa hagaag saaxiib yar qodobka xiga markaan eegnana dacwad ka dhanaa farmaajo iyo Rooble ayaa loo gudbiyay maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ee ICC loo soo gaabiyo urur qareena Soomaaliyeed oo ku sugan dalka Australia ayaa dacwad ka dhanaa dawladda Soomaaliya waxay u gudbiyeen maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ICC dacwadan ayaa ku qotonta 4 qodob oo midda ugu muhiimsan ay tahay kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo ahayd sargaalad ka tirsan hay'adda NISA asaatay ilaa yaatan aan raq iyo ruux midna lagu haynin sidoo kale qodobada dacwadda ay gudbiyeen waxa qayb ka ah weerarkii dadka badan ay ku laadeen ee ka dhacay magaalada Baydhabo doorashadii madaxweynaha haatan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Cabdicasiis Laftagareen sidoo kale qodobada dacwadda lagu gudbiyay waxa qayb ka ahayd xanibaadii muddo la saaray magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose iyo arrimo kale oo dacwadaha la xiriirta laga gudbiyay madaxda sare ee dalka dacwadan la gudbiyay waxa la sheegay in looga gol leeyahay sidii baaritaan rasmi ah loogu sameeyay lahaa arrintaasi isla maraantana madaxda sare ee dalka loo horgeyn lahaa cadaaladda arrinta la xiriirta kiiska Ikraan Tahliil Faarax ayaa la sheegay inay tahay mid geedka go'ana isla maraantana ehelkeeda iyo qareenadan bay iska kaashan doonaan sidii arrintaasi talaab looga qaadi lahaa madaxda sare ee dalka ayaa u muuqanaya kuwa indhaha ka qarsanaya cadaalad helista Ikraan Tahliil Faarax iyadoo kiiskeedan uu muddooyinkii ugu dambeeyay aad ay u hadlayaan madaxda sare ee dalka warkayga ayaa dawladda daawanaysan saaxiibayaal marka aan eegno qodobka xigana dawladda Soomaaliya ayaa ciidamadii ugu faraha badnaa saacadii la soo dhaafay u daabushay deegaano ka tirsan gobolka Mudug iyo Galgaduud si gaar ah gobolka Galgaduud iyadoo halkaasina laga soo warinayo in ay ka dhasheen arrimo cabsi ah oo la xiriirta ciidamada faraha badan gaar ahaan kuwa gorgoro dawladda Soomaaliya ay saacadii la soo dhaafay geysay magaalooyin ka tirsan deegaanada dawlad goboleedkaasi Galmudug wararka soo baxaya ayaa sheegaya in dawladda Soomaaliya ay magaalada Dhuusamareeb u daabashay ciidankii ugu faraha badnaa kuwaas oo ah ciidamada danab iyadoo ciidamadaasina durba halkaas ay ka bilaabeen dhaqdhaqaaqyo ciidan ujeedka iyo dhaqdhaqaaqa howlgallada ciidamadan ayaa lagu sheegay inay ka hortagayaan dhaqdhaqaaqa ciidan ee ahlu sunna ay ka wadaan deegaano dhowr oo ka tirsan gobolka Galmudug ay maamushay ee Galgaduud waxaana si gaar ah ay kaga soconayaan Dhuusamareeb duleedkeeda gaar ahaan Huurshe iyo Gurceel ciidamada taabacsan ahlu sunna ayaa la sheegay inay saldhig ciidan ka sameysteen deegaanka Bohol oo qaraxsan waqooyiga kaga beegan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug sidoo kale magaalada Dhuusamareeb ayaa ilaa iyo shalayta waxa soo buux dhaafiyay ciidamo kala duwan oo ka tirsan dawladda Soomaaliya deegaanada Galmudug inta aan ka bixin dagaal geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa maanta ka dhacay deegaanka Huurshe ee gobolka Galgaduud dagaal u dhaxeeya laba maleeshiya beelad ayaa maanta ka dhacay deegaanka Huurshe halkaas oo la sheegay in la isku adeegsado noocyadiisa kala duwan dagaalkan ayaa yimid ka gadaal markii beelaha mid ka mid ah uu qaaday weerar culus iyadoo halkaasina muddo saacada uu ka soconaya dagaal qaraar u dhaxeeya laba maleeshiya beelad inta la xaqiijiyay hal qof ayaa geeriyootay iyadoo tareenta ka badan ay ku dhaawacmeen dagaalkan oo muddo saacada ka soconaya deegaankan hoostaga magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug maalmihiina dhaafay ayay taagneed xiisada adag ee u dhaxaysa labada maleeshiya beelad waxaana sidoo kale jirta cabsi baahsan oo la soo darisay dadka ku dhaqan ee deegaankan Huurshe la yiraahdo sanadii ugu dambeeyay ay soo noqnoqdeen dagaal beeladyada ka dhacaya iyadoo halkaasina dhowr jeer hore waan ay ka sameeyeen xubno isugu jira wax garad odayaal dhaqan iyo xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya heshiisyadii ugu dambeeyay oo la kala qaatinaysan dagaal ka dhaceen deegaanada Galmudug ayaa u muuqanaya kuwa cusub iyadoo haatan ay u muuqdaan kuwa markale dib u soo laba kaclaya dagaalada beelaha u dhaxeeya ee ka dhacaya deegaanada dowlad goboleedkaasi Galmudug gaar ahaan deegaanka Huurshe iyo Bohol oo dhamaantood hoostaga magaalada Dhuusamareeb ee cariga dowlad goboleedkaasi Galmudug waa hagaag saaxiibadan jecelnahay oo gabagabada warkayga ayaan taaganahay qodobka ugu dambeeya markaan eegnana weerar ay dad badan ku dhinteen ayaa ka dhacay gudaha dalka Afghanistan tan iyo markii ay ururka Taliban la wareegeen gudaha dalkaasi weerar qarax ah oo ay ku geeriyoodeen hal qof halka tareenta ka badanna gaar ahaan 7 qofna ay ku dhaawacmeen ayaa ka dhacay gobolka Nangarhar la yiraahdo ee bariga Afghanistan halkaas oo la sheegay in la beegsado kolonyo ay saarnaayeen ciidamada Taliban qaraxan ayaa ka dhacay Jalalabad waxaana ay tahay
xarunta gobolka Nangarhar afayeenka Taliban ee gobolka ayaa sidaas u sheegay wakaaladda wararka ee DPA isaga oo aan bixin faahfaahintaasi ka sii badan ila ku sugan isbitaalka gobolka Nangarharna waxay sheegeen in hal qof oo ka tirsan dagaalyahanada Taliban iyo 7 qof dhaawacyo soo gaareen warbaahinta maxalliga oo soo xigtay dad goobjoogayaal ayaa sheegay in qaraxa uu ka dhashay miino wadada dhinaceeda lagu aasay si kastaba 15 bishii in dhaaftay ee September ay la wareegeen ciidamada Taliban gudaha dalkaasi iyadoo tan iyo markaasna weerar kala duwan ay ka dhaceen warkaad ka daawanaysan xulka wararka waa naga inta saaxiib yaaltan kulan dambana nabadiino